يا فنك كور فنان حاسدهم واديني مر دم نولش هذا إلى هيز دم قادم مر إلهي ساقط ما فهمه إن شاء الله دتك فنك هذا رجيسنا محل هذا حلا هاي إن شاء الله فنكيجا رجيسنا مركلة حتى بيانقل إلهي هنقع في دمانتين أنا جي أنت مسلمين ودوا جزاك الله markana dhanka iyo fanka suugaanta fanaanada caanka ah Xaliimo Goobaad oo maanta ka soo muuqatay baraha bulshada iyadoo ku sugan xaramka Alle Kacbada ayaa waxay shacabka Soomaaliyeed ka codsatay in heesaheeda la dhageysan dhanka kale ayna sheegtay in fanka Alle dartiis ugu baxday ayna mar dambe ku soo laaban doonin fanaanada ayaa waxaa xasuusanaa in maalmo ka hor ay shaacisay in fanka ka baxday kadib arooskeedii oo ka dhacay dalkaas Sweden fanaanada Xaliimo Goobaad oo hadalkeeda sii wada ayaa waxay sheegtay in fanka iska dhaaftay Alle dartiis shacabkana ka codsatay in heesadeeda ay dhageysan ayna iska tirtiraan Xaliimo Goobaad ayaa ahayn fanaanadii koowaad oo dumar ah iskaga baxday fanka waxaa xasuusanaa in Xamdi Bilan qaaliladan iyo Saacadiya Siman ay ku dhawaaqeen in fanka iskaga baxeen sanadihii aan soo dhaafnay sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa aad u soo faro badanaya fanaaniinta iskaga baxaya fanka iyo dambigiisa ayagoo sheegaya in fanka uu lahayn dhaqaale dambi iyo magac mooyaane dhanka kale walaalkeen Axmed Biif oo hor u ahaan jiray fanaan hore oo hadda magaciisa lagu magacaabo Axmed Khayr ayaa wuxuu ugu soo hambaliyay fanaanada Xaliimo Goobaad in fanka iskaga baxday wuxuuna bartiisa Facebook ku soo qoray erayadan maasha Allah walaashin Xaliimo Goobaad waxay qaadatay dariiqadii toosneed ee Rabbi inoo abuuray Alle ha xafido hore u soco insha Allah dhamaanteena Alle hanugu sugo cibaadada insha Allah walaashin aanu duceeyno ayuu wuxuu ku soo qoray bartiisa Facebook Axmed Khayr oo loo magacaabi jiray Axmed Biif hadaan nahay bahda wanaagga qoyska waxaan halkan ugu duceynaynaa walaashin Xaliimo Goobaad oo maanta soo gabagabaysay fankii waxaana dhanka kale Xaliimo Goobaad ballan qaaday inay baran doonto diinteeda suuban in shacabka ka codsatay in ay u soo duceeyaan una duceeyaan familkeeda cusub ee yeelatay markaan naga daawanaysiin wanaagga qoyska aan lagu barteen barnaamijka arrimaha bulshada fadlan subscribe maalintan ku wanaagsan